Asalaamu calaykum. Sheekadayna maanta waxay ku saabsan tahay gabadhan ayaa in fara badan waxay ahayd mid aan iyaal lahayn. Markii dambe waxay noqotay gabadh nolosheeda kale ku mashquushay. Intay dadku arkayaana waxay ahayd gabadh dadka u adeegta. Dad fara badanna xaafadeeda waa ay joogi jireen sida iskaga mashquuliso carruurta. Odayganna wuxuu ahaa odaygayga. Isaguna shaqo fara badan ayuu lahaa oo inta faraha badan lama uu joogi jirin. Laakiin iyada ayaa joogi jirtay. Aroor walba waxa uu ahaa markay baxayso ay adeega tagayso mid ku sii dardaara inay sooqa fara badan bixiso siduu Ilaahay hadhow toole ugu naxariisto. Iyaduna waxay ku oran jirtay qof walbaan arko gurigeena waa aan keenaa sadaqana iguma harin ee waxaan u malaynayaa Ilaahay wax fiican ayuu noo soo wadaa. Iyadu marka dambe waxay tagi jirtay adeegayga isaguna waxa uu bixi jiray shaqadiisa oo aroortii shaqo ayuu lahaa. Waxa uu ahaa mid maalin walba murugoon jiray oo carruurtana aad u jecel. Islaantu waxay noqotay markii dambe qof walba weyn hadday aragto oo meel fadhiya waxay ahayd mid ku dhawaato ku tiraahda iska waran maxaad u baahantahay in lagu qabto ma waxbaad rabtaa sheeg waxa aad rabtid. Qofku markuu in fara badan barido waxa uu ka oran jiray dadka waaweyn welibana waxaan rabaa meelan galo iyo meelan seexda inaan helo. Gabadhu waxay ku oran jirtay dad fara badan oo waaweyn ay heen jirtay. Waxay ku oran jirtay ka waran haddaad anigay raacdid cuntadaada iyo meesha seexanaysid bilaash noqoto. Dadkuna waxay ku oran jireen Ilaahay waxaanu ku weydiinaynaa wax fiican haddaad sidaa noo samaysid. Waxayna noqotay gabadhu mid gurta dad fara badan. Gurigeena waxaa joogi jiray islaamo aad u fara badan. Waxayna u qabatay guriga shaariyad. Maalin walba gabadhii ay keento ee islaam weyna waa ay tusi jirtay waxay ku oran jirtay hablaahi kaalay waxaad geysaa guriga qaybta dhismaha dambe. Gabdhuhuna shaqaalihii waa ay yaabi jireen dadkan faraha badan le ay soo ururinayso. Maalin walbana waxay weydiin jireen tanna halkee ayaad ka keentay kuwii horeba ma karaynay. Dadkan faraha intan leegleed guriga kusoo ururinaysay dadka waaweyna hadhow yaa cunto siin doona. Iyaduna waxay ku oran jirtay Ilaahay baa risqooga qoray waxaa samaysa qolkayga gee oo tus oo cunto fiican iyo dhar fiicanna sii. Markaasay ku oran jirtay waayahay iga raali noqo soo soco guriga waa gurigaagii kaalahan ku tusi qolka aad jiibsanaysid. Shaqada gurigana gabadhan ayaa hayn jirtay oo maamulka ahaan jirtay. Gabadha gurigalana iyaduna waa ay caawin jirtay. Ninkeygii markuu soo noqday markii dambe gabadhii waa u sheegtay inay qof cusub ay guriga keentay qolalkii banaana ay masiisay. Gabadhii markii dambe waxa uu ku wax fiican ayaa samaysay. Gabadhiina waxay ku tiri ha iloobin cashada sii dadkii aan soo guray oo dhan. Waayo waa dad waaweyn oo waxay u baahan yihiin in la ilaaliyo. Jaariyadu waxay ku oran jirtay wax walba aniga ayaa u qabanaya ha ka warwarin aniga ayaa nagu jooga. Muddo kadib gabadhii markii dambe maalin ayuu ninkeygii soo rooxay isagoo faraxsan. Waxa uu ugu yimiday islaamii ay hayn jireen islaan ka mid ah oo meesha taagan oo faraxsan. Markaasuu ku yiri hablaaye maanta ma arkay halkee ayay martay ma waxbay soo iibinaysaa. Markaasay ku tiri may hablaayo waxay ku jirtaa dhakhtarka ayaa ku jirtaa. Hablaayana waxay ahayd gabadh aad u fiican waxaan u rajaynayaa wax fiican inuu Ilaahay soo siiyo. Ninkeygii isagoo cararaya ayuu dhakhtarkii kaga daba tegay. Gabadhiina waxay jaariyadii amartay in gurigana laga sii hagaajiyo cunto fiicanna loo sii kariyo. Odaygii markuu tagay dhakhtarkii waxa uu helay 2 hablood oo kala yara dugan midabka laakiin aad bay ugu faraxsanaayeen sanado dhan way waxba ma ay helin. Gabadhii dhakhtaradiina si aad ayuu ugu mahad celiyay waxaana ku dhawaa aad mahadsantahay. Markii ay soo baxday kadib labadii gabdhood waxay noqdeen kuwa aad u jecel. Islaamii mid ka midana waxay noqotay mid carruurta la ilaaliso la korisa. Waqtigii markii dambe waa uu iskuray gabdhihiina waa ay weynaadeen. Gabadhii mid ka mid ah labadii gabdhood waxay noqotay gabadh timir fiican leh oo dhaadheer oo aad u qurux badan timaheeduna. Aabahoodna aad buu u jeclaa. Mar walbana waxay haayeen kuwa aabahood ka amar qaato ku yiraahdo aabo halka ma tagna. Isaguna wuxuu ku oran jiray horta waxaan eegno sida aan sameeyno. Iyaguna mar walba waxay haayeen gabdho ogal wax walba uu aabahood kula taliyo. Gabadhii markii dambe secondary waa ay dhameeyeen waxayna u gudbeen jaamacad. Jaamacadii dad fara badan ayaa ay ku barteen. Gabadhu inta faraha badan leh dadku waxay la yaabi jireen timaha dhaadheer ee ku yaala markay arkaan iyadoo meelaha socota. Ardayda fara badan waxay jeclaayeen in ay bartaan gabadhan timaha dhaadheer leh. Arday ka mid ah ardayda jaamacadaha ayaa waxay markii dambe gabadhan ku casuumeen inay xaflad dhalasho timaado.
iyadu markii hore waa ay diiday waxa ay ku tiri walaashay haddaynay raacin ma tegayo aabba nooma ogolaanayo laakiin gabdhihii waxay ku yidhaahdeen kasoo fikir waa xaflad aad u fiican oy dadkoo dhan ka qaybgelayaan gabadhii walaasheed ayaa ku tiri naagahan aniga wejigooga waa aan ka yaabay siday ku eegayaan ma iska dayni wax kale ayay kaa damacsan yihiin gabadhi waxay ku tiri waxay iga damacsan yihiin ma jirto waxaan u malaynayaa inay maalin dhow jaamacadan aan ka noqonayo qof lagu wada kalsoon yahay gabadhii baa ku tiri xafladda aan aniga laygu yeerin ardayda kale loogu yeerin adiga maxaa lagugu yeerayaa gabadhii markii dambe waxay ku tiri qayladeygida aabba ayaan soo weydiisanayay aabbaheedna waa u timid waxay ku tiri aabba waxaan rabaa inaan habla aan saaxiib nahay aan raaco oon xaflad aan la tago habeenkii ma ii ogashahay aabbaheed waxa uu ku yidhi xaflad anuu ma diidani aad tegisid laakiin walaasha hablaaye haddii ay ku raacayso waad wada bixi kartiin aabbaheed waxay ku tiri aabba hablaaye lama casuumin anigoo kaliyaana lay casuumay aabba ma socon karaa oo ma tegi karaa aabbaheed waa uu diiday laakiin gabadhii kale mataantay ayay ka sasabtoo ku tiri aabba iska daa hablaaye waad garanaysaa waa gabadh aamusane markaasuu ku yidhi waayahay waad tegaysaa waxaana samaysay aniga ayaa ku gaarsiinaya saacadahana u sheeg saacaddaana waad imanaysaa saacaddaana waa iska soo noqonaysaa xafladda gabadhii way ogolaato waxay ku tiri waa balan xili hore ayaan ka soo noqonayaa fiidba guriga waa aan joogaa waana igu balan gabadhii waa isdiyaarisay toobkii ugu qurux badnaana waa ay xidhatay hooyadeedna waxay ku tiri aad ayadu qurux badan tahay timihii dhaadheeraana maanta waa aad duubtay gabadhii markii dambe waxay ku tiri hooy xafladda ayaan tegaya waxaan diidaya inaan habsaamay khayr ayaan ini ogahay labadiinaba sidiina waa ay ku baxday gabadhii markii dambe xafladdii ayay tagtay iyadoo aad u faraxsan asxaab fara badanna waa ay joogeen in yar markii la ciyaaray markii dambe waxaa soo galay niman aad u fara badan oo afka duuban timahan ayay isku waashay iskuulka dhan ku waashay jaamacaddabe waxa ay samaysiin timahan ka gooya jaamacadda waxay aroorta ku timaadahan eegne wayna qosleen gabadhii markii dambe waa ay naxday nimankii oo timaha ka goynayana way ka soo baxsatay hooyadeed waxay aragtay iyadoonba saacadu dhaafin iyadoo ka warwarasoo ku leh gabadheennii tolow ma laga yaaba inay xafladdii gaadhay in kale gabadha kalena waxay ku lahayd hooye istaji way gaadhaysaaye odayguna waxa uu ku lahaa waxa laga yaabaa inay imikun bilaabatay xafladdu sowta imikunay naga baxday laakiin in yar kadib gabadhiga qaylina soo ordaysa ayaa gurigii soo gashay markay fadhiisiyeen ay waraysteena ku yidhahdeen maxaa ku dhacayn waxay tiri naagihii xaflad ma ay dhigeen laakiin timahayga dhaadheer ayay xaasidayna doonayeen inay ka goostaan hooyadood baa ku tiri markii dambe namaana kugu odhan qof lama aamino adiga ayaan ku kari waayey maalintaa wixii ka dambeysay gabadhi waxay noqotay gabadh wax walbay u soo sheegaan aan rumaysan oo mar walbana tidhaahdo waa beentood markay maqasho gabadh ama saaxiib wada hadlaya sheekadeenniina intaa ayay ku dhammaatay